xaflad xil wareejina oo xisbiga kulmiye laantiisa Finland ayaa ka dhacday caasimadda Helsinki. xafladan oo gudoomiyihii hore ee laanta ku wareejiyay gudoomiyaha cusub injineer Maxamed Cabdilaahi Ilkacase waxaa ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga kulmiye wadanka Finland, madaxda labada xisbi mucaarad iyo marti sharaf kale. hadalladii xil wareejinta gudoomiyaashu ka jeediyeen waxaa ka mid ahaa بعدي شراء هوسة كبعدي يسوي جيم فرق بدن كبعدي يسوي تناسلات فرق بدن كبعدي إنه هالكم هاد شو قاعد سيني ودي دي حسبي كلمية فيلان إنه ده دنا إنسان لا شخص مالان waxay tiigsanayso inuu u gaarsiino deegaanka waxaan ahay gurigul ambassadors baan ambassadors federal bay dadkuna hadii aan adu aan halkan wakiil hadda Soomaaliland oo la ictiraafsay dawladda soo diraysa ma jirto laakiin dadkeena halkan ka wakiila special xisbiyada iyo jaalid marti sharafta xubnaha taageerayaasha aad iyo aad ayaad mahadsantihiin inaad ka jawaabteen codsigii aan idka codsanay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan aanu halkan aanu ku qabanay guddiga cusub ee kulmiye. As a party, Kulmiye, we know we are the only party so far who has an agenda and a vision. And our politics is based on vision and agenda. In our melas kafafarisano. Aadan Yusuf Ismaan, telefishinka caalamiga Home Cable TV, Finland.